السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan ergada oo isugu jirta odayaasha iyo waxgaradka iyo haweenka iyo dhalinyarada ka soo qaybgalayaasha martida sharafta leh oo uu ka mid yahay sanatarkanagii Master Mawlid maamulka gobolka Gado oo hogaaminayo gudoomiye ku-xigeenka iyo maamulka degmada oo hogaaminayo gudoomiyaha degmada gudoomiyaha ururka haweenka degmada dhammaan marti sharafka ka soo qaybgalayaasha guddiga fiid ee noo daadiinaya doorashada iyo dhammaan bahda saxaafadda oo aad iyo aad runtii si wanaagsan u gudbinayo dunida daafaheeda kala duwan meel kastana gaarsiinayo waxaan halkaan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kastood joogtaan waxaan halkaan ka salaamayaa ummadda Jubbaland waxaan salaamayaa Jubbalanta xorta meel kastoo aad joogtaan waad aragtaan caawa oo habeennimada saacadda waxaan u malaynayaa waa 5tii haddaan la gaarin waaba dhaaftay doorashadii habsami u socodka sida wanaagsan ay ku socoto oo qiimaha leh oo ergada qof kasta oo loo yeero hoolka ergadiisa waxay joogtaa bannaanka halkaasayna ka soo galaysaa sida borotokool kale waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa guddiyada farsamada oo ka shaqaynaya hoolka sida erga kasta ay isu daba marin hayaan ergadii codayso iyo xildhibaankii codka helaba sida haddana markiiba loo gudbinayo runtii waxaad u jeedaan hoolal cajiiba inay ku yaallaan magaalada Garbaharey waa hoolkii weynaayo inji oo loo qorsheeyay doorashada inay ka dhacdo caawa ay ka socoto hoolal badan iyo bakinna wanaagsanna wuu leeyahay halkaasaana loogu gudbinayaa erga walba markay soo gasho ergada kale ay ku galaysaa runtii guddiga farsamadana aad baan ugu mahadcelinayaa sida wanaagsan ay u daadiinayaan shaqada hawshan ay u socoto waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inaan u sheego xaq iyo xaq darro inaysan isku mid ahayn waxa caawa halka ka socda xaq way waxa ceel qaalow ka socdayna xaq darro weeye waxa ceel qaalow ka socday waxa xaq darro ahayd doorashada sharciga oo qiimaha leh oo nidaamkii sharciga ku fadhiday oo madashii iyo baarlamaankii Soomaaliya iyo madaxweynihii dalka u sareeyay ay feermeeyeen sharcigana ahayd halkaanay ahayd wax badanna waa sheegnay ummadda reer Gado iyo ummadda Jubbalandna way ka hadashay waxa weeye xaq iyo xaq darrada ma sinno waxa weeye waxaan u hambalyeeynaa baarlamaankii naga horeeyay aad iyo aad baan ugu hambalyeenaynaa waxaan u hambalyeenaynaa gudoomiyaha cusub waxaan u hambalyeenaynaa cid kastoo soo baxdo insha Allah ta'ala waxaan rabnaa hawshii aad caawa noo igmateen ergada qiimaha badan oo aad noo doorateen kursigan waxaa loogu shaqaynayaa gobolka Gado waxaa loogu shaqaynayaa Jubbaland waxaa loogu shaqaynayaa Soomaaliya insha Allah ta'ala si habsami oo wanaagsan baan hawshanada u gudan doonaa waxaan caawa rajaynayaa oo aaminsanahay inaad hesheen matalaad dhaba inaad hesheen baan aaminsanahay insha Allah ta'ala waxa weeye waxaan insha Allah waan rajaynaynaa oo aan qabno waxa weeye inaad matalaadiina aad ku maartay aad u bogi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah ta'ala waxaan idin rajaynayaa guul mar kastana waan idin mahadcelinayaa waxaan idin leeyahay hambalyo sida wanaagsan idinkoo goobo dheer ka yimid waxa weeye soonay tahay degmooyinka gobolka Gado isaga yimid iyo deegaanada kale ee gobolka runtii aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa iyadoo bil Ramadaan ay tahay bil Ramadaanna soon lama qabteen niman cuqubo qabo inkaar qabo yaa bishaanna soo gaarsiiyay insha Allah ayagana waxaan rajaynaynaa inuu Ilaahay noo soo hanuuniyo aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa Soomaaliya guul Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Jubbaland guul gobolka Gado guul